waxyaabahan aaminsanahay in qofku wacyigiisa dadnimadiisa ahaanshihiisa ilbaxnimadiisa iyo ogaalkiisa adduun inay fidiyaan ay kordhiyaan waxa ka mid ah inuu qofku ka baxo inta yar ee comfort zone-ka inta yar uu la qabsaday dadku la qabsaday uu yaqaano deegaanku la qabatay uu yaqaano waxa uu la qabatay uu arkay in naftiisu nafis ku dareento inuu ka yara baxo bulshooyin kale la dhaqmo dhaqanno kale arko qaabab kale oo loo nool yahay arko waxyaabahaas waxay ku kordhiyaan qofka cabqarinimadiisa kordhiyaan fikirkiisa balaariyaan waxay baraan dulqaadka waxay baraan maaragtay xamilka waxay baraan in qofku uu ogolaado in laga duwanaan karo in laga duwan yahay inay caadi tahay marka mid waxa weeyaan mid dugsiyada ku barano dugsiyada casharada ku barano maahe waxyaabaha kale badan ee ku barano waxa kamid ah inuu qofku qof bulsho noqdo oo emotional intelligence-kiisa dhismo oo qofku dadka kale dareenkoogii barto oo qofku aaminin inuu isku xor yahay uu xor yahay wax walba inuu sameeyo wuxuu qofku dugsiyada ku bartaa socialization dadnimo bartaa waxyaabo badan oo aanad xaafadiina iyo jaarkiina iyo golayaasha kale nolosha aanad ku baran karin baa dugsiga lagu bartaa ta koobaad oo ta ugu muhiimsana qofku wuxuu ka dhaqaaqaa ama ka dhaqaaq waaya waa siduu wax u arko perceptions adduunka saa u arkaysa adduun aragga maanhaga madaxa yar ee nagu rakiban baa inahaga kaasa waxyaabo badan suuro geliya ama caqabad nagu noqda ama fursad ay noo fura in dadkaad raacdo waxaad ka sheekayso waxaad maqasho iyo waxaad aragto aad uga fiirsato oo waxa madaxaaga galaya uu noqdo waxaad hubto inuu kuu dhaweynayo halkaad u socoto kow talabaad oo ta ugu muhiimsan ee isleeyahay waxbay qaban kartaana dadku halkay boqol ka raadinayaan adigu yara fidso boqol iyo konton ka dhigo ama 200 ka dhigo hal talaabo ku sii dareentay dadku shaqaynayaan laba nin baa farta yidhi keenay adkaysi badanoo gooska dambu midba midka kala fariisa galiyay waa la isqaniinay waa la isku hayay adkaysigii waa la tijaabinay moogta waa la isku hayay labadii nin si farihiis kugu hayeen qaniyadii ay labada dhiig ka soo yaacay labadiiba halkaas uu dhiigii farta ka soo yaacay cararaya way isku adkeeyeen markay adkeeyeen ayaa waxa dhacay mid kamid ah ooyo yiri walaalkayga qaad way iga tahay kii kale wuxuu ugu jawaabay tii hal una si hay lahay aniga ku oran lahaa walaal iga qaad so wax badan oo aad u malaynaysan inaanu shaqaynayno oo ku daalayso cid badan oo kaaniyo jabinaysa aad maqasho duruufo ku diidan oo dhaqaaliyo wax kala alaad jira wax badan oo tashwiish kugu furaya jira one more minute hal minute si yara joog meesha hal sano si yara joog hal maalin si joog dadku dhan oo rajalaan arkaya si yara joog one minute you're going to win. nin odaya laga hayay markaad 20 jir tahay waxa kula weyn sida lagu arko markaad 40 jir tahayna macna badan kuma samaysa sida lagu arkaa markaad 60 jir gaadho baad ogaan inaanay cidiba kugu mashquulsanayneed adigu una buuq saraadinaysa marka cidina kugu mashquulsanay hawshaada wado ogowna in waxa ugu muhiimsan ay tahay inaad gaadho waxyaabaha noloshaada u muhiimka ah kalluunka noociisa shark leedahay haddii lagu rido taangi wuxuu koraa 8 inchi laakiin haddii lagu daayo badweynta wuxuu koraa 8 feet sababtu waxa weeye kalluunkaas waxa maamula oo saameeya koriinkiisa deegaanka ku korayo adiguna sidoo kale haddii ay ka agdhow yihiin oo ay kugu meersan yihiin dad kasma kooban oo si kooban u fikira kori maysid wadiga bedel bay adaada oo ay koriinkaaga that's your daily dose see you tomorrow